Markii aad isku dayday inaad dadka hadal ku soo jiidato, waxaad isku dhibaysaa hadallo tiro badan, waxaana si tartiib tartiib ah u luminaysaa haybadaada iyo qof ahaaneed. Haddii waxa aad sheegaysaa uu yahay waxaan macno lahayn, waxaad si toos ah u luminaysaa qiimihii ay dadka ku hayeen. Haddii weeray afkaaga ka soo baxo, dib uguma celin kartid. Waa halka ay Soomaalidu ka tiraahdo af daboolan waa dahab. Sidaa darteed, waxaa habboon inaan afkeena xakameyno, gaar ahaan markaan caraysanahay, si aanan wax walba uga hadal. Waxaa la yiraahdaa haddii aad qof doonaysid inaad ka ogaatid ra'yiga uu kaa qabo, waa laga caraysiiyaa. Xumaan walba uu kuu qabana dibadda ayuu u soo saarayaa. Cadowgaaga ka dhig kuwa u baahi qaba macluumaadkaaga. Markastoo macluumaad dheeraad laga helo, adiga ayaa lagu adeegsan karaa in lagugu weeraro ama saaxiibadaada laydinku kala dilo. Sidaa darteed, ka digtoonow eray walba oo afkaada ka soo baxaya, ogowna inta badan in aamusnaantu tahay awood. Boqor soo maray dalka Faransa ayaa waxa uu ahaa mid aamusnaan badan oo aad u afgaaban. Erayga ugu badan oo isticmaali jirayna waxay ahayd waan arki doonaa. Aamusnaantiisa dadka ku hareeraysan waxay ku beertay argagax. Markasta oo aamusnaantaadu badan yahay, qiimahaaga wuu kordhayaa. Afgaabnidu waxaa looga badbaadaa mushkiladaha khatarta ah. 1825 ayaa dalka Ruushka hogaamiye la oran jiray Kondraty oo dilka xukunna ayaa la geeyay goobtii lagu daldali lahaa. Markii kursigii laga hoos qaaday ayaa xariggii lagu daldalayay uu la soo go'ay. Markii uu arkay inuu badbaaday weliba si mucjiso leh, iskama aamusin dadkii goobta isugu yimid ayuu la hadlay. Waxa uuna ku yidhi, dalkeena Ruushka wax walba waa sidan oo kale, xitaa ma garanayna sida loo xiro xarigga daldalaadda. Boqorkii ayaa loo sheegay mucjisadii dhacday iyo sidii la yaabka leh oo u badbaaday. Waxa uuna dadka weydiiyey markii uu sidaa u badbaaday muxuu yidhi. Waxaa loo sheegay hadalkiisa jees-jeeska ahaa. Dadkii boqorka ka ag dhawaa waxay tilmaameen inuu boqorka damacsanaa in la iska cafiyo, laakiin markii hadalka loo sheegay ayuu go'aan adag soo saaray oo uu yidhi wixii dadka uu sheegay wax ka duwan ayaan tusaynaa. Maalintii labaad ayaa si wanaagsan loogu soo diyaargaroobay oo la daldalay, sidaa ayuuna ku dhintay. Waxyaabahaasi oo dhan waxay ku tusayaan in aamusnaantu ay tahay xigmad iyo awood.